mas-uuliyiinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucud iyo qaar ka mid ah musharaxiinta golaha deegaanka ee degmada Berbera hadiiba la qabto doorashada soo socota oo maanta shir isugu yimi ayaa waxa ay cambaareeyeen xariga xogayaha arrimaha gudaha ee xisbigaasi ucud Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax iyagoo ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland inuu si degdeg ah xorriyadiisa ugu celiyo rasuulkaasi muddada 5 maalmood oo ku xabsiyan magaalada Hargeysa waxaan runtii halkan shirkan jaraa'id qoonay maanta Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax xarigiisa aad iyo aad baan u cambaareynaa oo ka soo horjeedna waxaan leenahay xorriyadiisa loo soo celiyo si degdeg ah dawladda xorriyadiisa ugu soo celiso dimuqraadiyadii maanta waxay ku dhacday god madow waxa la xiray saxafiyiintii waxa la xiray siyaasiyiintii waxa hadhay Faysal Cali Waraabe iyo Ciro labadana waxaan leenahay madaxweyne labadaas uma jeelka soo rigi labadana jeelkii ayaan leenahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad baan u cambaareynaa waxaan nahay xariga Maxamuud Cali Saleemaan waxaan doonaynaa in si degdeg ah xorriyadiisa lagu soo celiyo haddaan nahay mas'uuliyiinta gobolka Saaxil ee xisbiga ucud waxaanu maanta halkan kaga hadlaynaa aanu runtii aad uga xunay xariga lagu kacay siyaasi Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax runtii xariga aad baan uga xunahay runtii arrinkaasi waa arrin aad iyo aad aan uga xunahay aadna aan u cambaareynayno waxa weeye waqtigii campaign-ka Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax wuxuu xoog uga howlgalay gobolada Saaxil iyo Togdheer runtii isagoo ka howlgala jooga gobolka Togdheer ayuu Berbera nuugimayno lahaa walaalkay wax marayaan haddii aan estimate gareeyo ama aan qiyaaso codkii ninka uu Ramaax keenayna ugu yaraan 25 kun oo cod kama yara jeebkiisa iyo kartidiisa isagu iyo raganimadiisa ku keenay xisbiga kulmiyo keenay iyo musharax Muuse Biixi Cabdi qoliyo kalena waxay tusayeen madaxay tusayeen Muuse Biixi waqtigii campaign-ka laakiin isagu runtii wuxuu ahaa nin ka bareeray iyagoo nimadooda ay ku jiraan wadan iyaguna halkan madaxa tusayeen Muuse Biixi runtii laakiin isagu nin ka bareeray oo kartidiisa iyo qofnimadiisa muujiyay oo runtii dhiigiisa u shubay baa xisbiga kulmiye maanta in la xidhaana wax xaq maaha runtii aad uga xunay xarigiisa maalin kasta waxa la xidhay TV-da baa la xidhay la xayirayaa saxafiyiinta baa la xidhay siyaasiyiinta baa la xidhay abwaaniinta baa la xidhay macallimiinta baa la xidhay madaxda xisbiyada qaranka oo ugu dambeeyeen xogayihii guud xisbiga wadani iyo afhayeenkii baa la xidhay ugu dambeeyay runtii xariga siyaasikiina mid xalkeena ma aha waxaan leenahay madaxweynaha si degdeg ah xorriyadiisa ugu soo celi Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax bismillahir rahmaanir rahiim anagoo ku hadlayna magaca xildhibaanada musharaxiinta xisbiga ucud ee gobolka Saaxil iyo afhayeenkii iyo dhalinyar ahaanba waxaan aad iyo aad u cambaareynaa xariga Maxamuud Saleemaan Ramaax madaxweynaha Soomaaliland waxaan ku codsanaynaa inuu sida ugu dhaqso badan leh u soo daayo siyaasiyiinta mucaaradka oo laga daayo handadaada lagu hayo siyaasiyiinta mucaaradka waxaad ogeydeen in door weyn la xiray kuwii xisbiga wadani imkana loo soo dhigtay kuwii xisbiga ucud taas waxay ka turjumaysaa in la leeyahay yaanay hadlin siyaasiyiinta mucaaradka waxaan odhan lahaa madaxweynaha Soomaaliland wax mucaarado xidhay waxaanba ku hadhay Cabdiraxmaan Ciro iyo Faysal Cali Waraabe labadana degdeg u soo xidhan lahaa Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.